Bismillahir Rahmanir Rahim. Wacan oo wanaagsan daawadahna qiimaha badan. Halkan waa janaalkeena Hoggaan Media oo had iyo jeer aad kala socotaan barnaamijka falanqaynta caalamka. Barnaamijkan fiidnimo waxaan ku soo qaadan doonaa iyadoo saacado yar ay nooga harsan tahay in uu bilowdo tartankii ugu weynaa ee kubadda cagta ee dunida ee sanadda 2026. Qodobkan waxaan isku dul istaagi doonaa haddii Rabbi uu ogolaado maalinta koowaad ee koobka adduunka sanadda 2026, jadwalka ciyaaraha, saadaasha kulamada, xafladda furitaanka iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee lagu sugayo. Yaa martigelinaya dalalkeesi ayaa ka qayb qaadan doona ma yahay koobkii ugu wanaagsanaa ee kubadda cagta guud ahaan. Umuurahaas oo idil ayaan ku dul istaagi doonaa qodobkeena ugu horeeya haddii Rabbi subxaanahu wa tacaala uu ogolaado. Geesta kale, Kuuriyada Waqooyi oo xaqiijisay taliye cusub oo ciidamada hogaaminaya. Maxaase ka jira wararka sheegaya in taliyihii hore ee la dilay? Maxay ka tiri warbaahinta dowladda Kuuriyada Waqooyi arrinkan la isla dhexmarayo iyo taliyaha cusub ee hogaamin doono ciidamada militariga ee Kuuriyada Waqooyi? Sidoo kale, inta aan ku guda jirno barnaamijkan waxaan ku eegi doonaa weeraro isdhaafsi ah oo u dhexeeya Mareykanka iyo Iiraan oo wiiqay xabad joojinta. Maxaa ka jira ilaha sheegaya in wadahadallada Iiraan ay sii xoogaysanayaan? Maxaa ka jira in Iiraan ay qaaday weeraro jawaab ah? Mareykankase muxuu u beeniyey in Hormuz la xiray? Guud ahaan qodobadaas oo idil ayaan ku dul istaagi doonaa inta aan ku guda jirno barnaamijka falanqaynta caalamka. Balse daawadahena qaaliga ah, inta aan u gudagelin dhammaan qodobadaas faahfaahintooda, waxaan kaa codsanayaa haddii uu ku soo gaaro muuqaalkeena, fadlan like noo saar. Haddii aadan ka mid ahayn bahdayada ee Hoggaan Media, waxaan kaa codsanayaa inaad nagu soo biirto oo aad rukumato janaalkeena Hoggaan Media, isla markaana gambaleelka aad furato si ay kuu soo gaaraan muuqaalada xiga. La wadaag asxaabtaada muuqaalka oo noogu share garee si aan u helno like badan. Fadlan like-ta hanaga hilmaamin, waxay kor u qaadi kartaa daawashada muuqaalkeena. Taariikhdu waa 11 Juun sanadda 2026. Magacaygu waa Hashim Adam. Ku soo dhawow barnaamijka falanqaynta caalamka. Waayahay, haddii aan ku bilaawno qodobkeena ugu horeeya. Koobka adduunka ee 2026 ayaa si rasmi ah u furmaya maanta oo Khamiis ah, iyadoo uu bilowday tartankii ugu weynaa kubadda cagta abid ee la qabto. Haddaba tartankan ayaa lagu martigelinayaa dalalka Mareykanka, Canada iyo Mexico. Markan waxaa ka qayb galaya rikoor cusub oo gaaraya 48 xul oo qaran ah, kuwaas oo ciyaari doono 104 kulan muddo 6 toddobaad ah. Malaayiin taageerayaal ah oo daafaha dunida ku nool ayaa indhahooda ku wada haya xafladda furitaanka, kulamada ugu horeeya iyo dhacdooyinka lagu xasuusan doono tartankan. Haddaba jadwalka ciyaaraha ee Juun 11, koobka adduunka ayaa maanta si rasmi ah ugu furmaya dalka Mexico iyadoo la ciyaaraya 2 kulan oo ka tirsan Group A. Xafladda furitaanka waxay ka dhacaysaa garoonka Mexico City Stadium ee magaalada Mexico City. Xafladda weyn waxay noqon doontaa bandhig weyn oo lagu maamusayo fanka iyo muusiga Mexico iyo guud ahaan Latin America. Fanaanka reer Mexico ee Alejandro Fernandez ayaa qaadi doona heesta calanka qaranka, waxaana ku helin doono fanaaniin caan ah oo ay ka mid yihiin Mana, Los Angeles Azules, Lil Nas iyo Belinda. Sidoo kale waxaa bandhiga ka qayb gali doono J Balvin oo ka soo jeeda Colombia iyo Danny Ocean oo ka soo jeeda Venezuela. Fanaanada caalamiga ee Shakira ayaa hormuud ka noqon doonto xafladda iyadoo ay wehelinayaan fanaanka reer Nigeria Burna Boy. Waxaana markii ugu horeysay lagu soo bandhigi doonaa heesta rasmiga ee tartanka lagu magacaabo Daya Daya. Haddaba xafladdu marka ay dhamaato, xulka martigeliyaha ee Mexico ayaa isla garoonka kula ciyaari doona South Africa. Dhanka kale, xulka South Korea ayaa habeen dambe la ciyaari doona ZH kulan ka dhici doona Stadio Guadalajara ee magaalada Guadalajara, iyadoo ciyaartuna ay bilaaban. Haddaba saadaasha kulanka Mexico iyo South Africa, xogta ay soo saartay shirkadda tiknoolajiyadda ciyaaraha Opto ayaa muujinaya in Mexico ay tahay koox si weyn loogu saadaalinayo inay guuleysato. Kombiyuutarka saadaasha Opto oo sameeyay 10,000 oo tijaabo oo kala duwan kahor ciyaarta ayaa Mexico siinaya 66.3% fursad ay ku badin karto, halka 14.3% fursadda South Africa ay ku guuleysato, iyada oo 19.4% fursadda ay ciyaartu ku dhammaan karto barbaro. Marka la eego Group A, guud ahaan Opta waxay saadaalinaysaa in Mexico ay ku dhammaysan doonto kaalinta koowaad, waxaana ku xigi doona South Korea, ZH iyo South Africa. Arrimaha kale ee saameynaya koobka adduunka, inkastoo marka xafladda furitaanka iyo kulamada ugu horeeya ay yihiin
waxa ugu weyn ee maanta indhaha lagu hayo. Haddana waxaa jira baa la leeyahay arrimo kale oo si weyn hadalhayn u abuuray. Waxaana ka mid ah muranada socdaalka, qiimeynta tikidhada oo cirka isku shareeray, tiknoolajiyada cusub iyo dhaawacyo soo gaaray ciyaartoy muhiim ah. Garsooraha Soomaaliyeed Cumar Cartan oo soo dhaweyn geesinimo leh loogu sameeyay Muqdisho. Garsooraha Soomaaliyeed Cumar Cartan ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho kadib markii loo diiday in uu galo gudaha Mareykanka ka hor bilaabashada tartanka. Boqolaal qof oo sita calanka Soomaaliya ayaa isu soo baxay si ay u soo dhaweeyaan garsooraha, kaas oo la filayay inuu noqdo garsoorihii ugu horeeyay Soomaaliya ee ka garsoora koobka adduunka. Mas'uuliyiinta Mareykanka ayaa ka hor istaagay garoonka caalamiga ah Miami iyagoo sheegay in ay jiraan arrimo la xiriira baaritaano amni oo dheeraad ah. Markii dambe FIFA ayaa ka saartay liiska garsoorayaasha tartanka. Cumar Cartan ayaa u sheegay wargeyska The New York Times in muddo 12 saacadood ah su'aalo lagu weydiiyay ka hor inta aanu dib loo soo celinin Soomaaliya. Si kastaba ahaatee niyadiisu ma uusan lumin. Waxa uu taageerayaashiisa u sheegay, waxaan idin ballan qaadayaa haddii Alle idmo in aan ka qayb gali doono koobka adduunka ee xiga, ayuu yiri Cumar Cartan. Tikidhka oo qaali noqday. Koobka adduunka ayaa la filayaa in uu noqdo kii ugu qaalisanaa taariikhda. Qiimaha tikidhada, safarka iyo hoyga ayaa sare u kacay, taas oo taageerayaal badan ay ku khasbanaatay in ay dib uga fikiraan safarkooda. FIFA ayaa markii ugu horeysay marka adeegsatay nidaam loo yaqaano dynamic pricing, taas oo micnaheedu yahay in qiimaha tikidhadu kordho marka dalabka uu bato. In ka badan marka 500 milyan oo codsi tikidha ayaa la gudbiyay wajiga hore ee iibka. Markii iibku furmay marka bishii December, qiimaha tikidhada finalka waxa uu dhaxeeya $140 ilaa iyo $8,680 Mareykanka ah. Markii la gaaray April, FIFA waxay kor u qaaday qiimaha ugu sareeya ilaa iyo $10,990. Taageere la hadlay Al Jazeera wuxuu yiri, sicir barar badan ayaa horey u jiray. Waxaana lacag badan ku bixinay shidaalka iyo safarka. Haddana tikidhadii ayaa si qaaliyoobay, taasi runtii waa wax laga xumaado, ayuu yiri. Tiknoolajiyad cusub oo tartanka lagu soo kordhiyay. FIFA iyo guddiga IVAB ayaa hirgeliyay isbeddello cusub oo lagu dardargelinayo ciyaarta laguna sii wanaajinayo go'aamada garsoorka. Haddaba maxay yihiin waxyaabaha cusub ee soo kordhay? 1. Nidaam casri ah offside-ka si toos ah u ogaanaya. 2. Kubad lagu rakibay dareemayaal gudbinaya xogta waqtiga dhabta ah. 3. Tirin muuqata oo 5 ilbiriqsi ah si loo yareeyo waqtiga luminta. 4. Sharciyo adag oo beddelka ciyaarta khuseeya. 5. Awood dheeraad ah oo VAR loo siiyay si dib ugu eego khaladaad muuqda. Dhaawacyo saameeyay xulalka. Netherlands ayaa weeday daafaceeda Jeroen Timber kadib markii uu ka bogsan waayay dhaawac kaga yaalay gumaarka. Brazil ayaa iyaduna lumisay daafaceeda Wesley oo dhaawacyo boodada bidix ka soo gaaray kulan saaxiibtinimo ay la ciyaartay Masar, waxaana lagu bedelay khadka dhexe Atlanta u ciyaara Ederson. Haddaba maxay ahayn muranka dhaliyay nasashooyinka cabitaanka? FIFA waxay amartay in dhammaan 104 kulan lagu sameeyo nasasho 3 daqiiqo bartamaha qayb kasta. Hay'addu waxay sheegtay marka in talaabadan loogu talagalay ilaalinta caafimaadka ciyaartoyda maadaama cimiladu aad ay kulushahay. Hase yeeshee dadka dhaliila ayaa ku doodaya in sharciga si guud loogu dabaqay xitaa meel aan kule lahayn. Waxaa sidoo kale ku eedeeyay FIFA in ay ganacsi ka dhigtay maadaama xayeysiino telefishin laga sii deynayo inta lagu jiro hakadka. Trump ma ka qayb gali doonaa kulanka furitaanka Mareykanka? Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump weli ma shaacinin inuu ka qayb gali doono kulanka furitaanka ah ee xulka Mareykanka uu la ciyaarayo Uruguay magaalada Los Angeles. Warbixin ay daawacday Politico ayaa sheegtay in dadka qorsheynta tartanka ku dhow aysan hadda ku filneen in uu yimaado, inkastoo qorshihiisu isbedeli karo. Si kastaba ha ahaatee, marka dowladda Mareykanka waxaa matali doono xogayaha arrimaha dibadda Marco Rubio iyo mas'uuliyiin kale oo sare. Dabaaldegyada koobka adduunka oo ka bilaabmay mudaharaadyo iyadoo marka Mexico ay isu diyaarinayso furitaanka tartanka. Haddana dibadbaxyo ayaa ka socda magaalada caasimadda ah. Macallimiin, shaqaalaha gaadiidka, beeraley iyo qoysaska dad kale leeyahay ayaa wadooyinka isu soo baxay iyagoo dalbanaya mushaar kordhin, dib u haweyn howlgab iyo xalinta cabashooyin muddo dheer taagna. Qaar ka mid ah marka dibadbaxyadan ayaa carqaladeeyay diyaargarowga tartanka. Haddaba maxaa ka dhigay koobkan mid siyaasaddu ay aad ugu badan tahay? Koobka adduunka 2026 wuxuu yimid iyadoo ay hareeyeen arrimo siyaasadeed oo ka badan kuwii hore. Waxaa jira baa la leeyahay marka doodo ku saabsan xanibaadaha socdaalka, dagaalada Gaza iyo Iran iyo xiriirka dhow ee u dhaxeeya madaxweynaha FIFA Infantino iyo madaxweynaha Mareykanka ee Donald Trump. Wariye Ashish Malhotra ayaa sheegay
in Trump si weyn uga dhex muuqdo dhacdooyinka ku xiran tartanka. Dhankiisa wuxuu sidoo kale dhaliilay FIFA isagoo yiri FIFA 100% waa hay'ad siyaasad ku lug leh, waxayna sidaas ahayd ku dhawaad qarnidan, ayuu yiri. Si kastaba ha ahaatee, inkastoo uu muran badan jiro, haddana balaayiin qof ayaa la filayaa in ay daawadaan tartanka. Sida uu yiri Malhotra, ciyaaruhu waa wax dadka soo jiita oo ay adag tahay in laga jeesto. Koobka adduunku waa dhacdada dadka adduunka isu keenta, ayuu mar kale yiri Malhotra. Taasi ayaana laga yaabaa in ay tahay xaqiiqda ugu weyn ee koobka adduunka. Inkastoo muran iyo siyaasado badan ay hareeyeen, haddana soo jiidashada kubadda cagtu weli waa mid ay adag tahay in la iska caabiyo. Waayahay, aanu imaano Kuuriyada Waqooyi oo xaqiijisay taliye cusub oo ciidamada hogaaminaya kadib warar sheegaya in taliyii hore la dilay. Haddaba warbaahinta dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa si rasmi ah u xaqiijisay in dalkaasi uu yeeshay taliye cusub oo hogaaminayo ciidamada militariga kadib markii ay hore u soo baxeen warar ka yimid magaalada Seoul oo la sheegay in taliyihii xilkaasi hayay la toogtay ama la dilay. Ria Myong-soo oo horey u soo noqday wasiirka amniga dadweynaha ayaa loogu yeeray taliyaha guud ee ciidanka shacabka Kuuriyada markii wakaaladda wararka dhexe ee Kuuriyada KCNA ay baahisay warar ku saabsan tababar ciidan oo uu hagayay hogaamiyaha dalka Kim Jong-un. Ria Myong-soo ayaa mar kale lagu xusay war kale oo KCN daawacday kaas oo ku saabsanaa kormeer uu Kim Jong-un ku tagay dhoolatus iyo tababar uu sameynayay ciidamada cirka ee dalkaasi. Haddaba ninkii isaga ka horeeyay ee xilkan hayay, Ri Yong-gil, ayaa la sheegay in horaantii bishan la dilay. Haddii warkaasi la xaqiijiyo, wuxuu noqonayaa mas'uulkii ugu dambeeyay ee ka mid noqda saraakiisha sarsare ee lagu sameeyay sifeen siyaasadeed iyo dilal lagu bartilmaamsaday madaxda dowladda. Wakaaladda wararka ee Kuuriyada Koonfureed ee Yonhap ayaa iyadoo soo xiganaysa ilo xog ogaal u arrimaha Kuuriyada Waqooyi sheegtay in Ri Yong-gil lagu eedeeyay inuu samaystay kooxo siyaasadeed oo isaga taageerta isla markaana ku lug leh ama ku lug yeeshay musuqmaasuq. Bishii May sanadii hore, hay'adda sirdoonka ee Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay in Kim Jong-un uu dil ku fuliyay wasiirkiisa gaashaandhigga Hyun Yong-chol. Wararku waxaa xilligaas ay sheegeen in lagu dilay qori culus oo loogu talagalay lidka diyaaradaha. Inkastoo dowladda Pyongyang aysan weligeed si rasmi ah u xaqiijin geerida Hyun Yong-chol, haddana tan iyo markaasi laguma arag goob fagaare ah, mana jirto wax war ah oo laga maqlay. Qaar ka mid ah falanqeeyaasha siyaasadeed ayaa aaminsan in uu la kulmay sifeen siyaasadeed kadibna la xiray. Tan iyo markii Kim Jong-un talada dalka la wareegay, geeridii aabihii Kim Jong-il bishii December 2011, waxaa si joogta u soo baxaya warar ku saabsan mas'uuliyiin xilal sare haya oo la sifeynayo, la dilayo ama si lama filaan ah loo waayo. Wararkaasi qaarkood waa la xaqiijiyay, halka kuwo kalena aan weligood la caddeyn. Mas'uuliyiin badan oo sare, gaar ahaan saraakiisha ciidamada, ayaa xilalkooda laga qaaday ama hoos loo dhigay, iyadoo hogaamiyaha da'da yarka ee Kim Jong-un uu dadaal ugu jiray in uu si buuxda u adkeeyo awoodiisa iyo xakameynta uu ku hayo ciidamada xoogga ee dalka. Kiiskii ugu caansanaa wuxuu dhacay bishii December 2013, markaas oo Kim Jong-un uu amray in la dilo adeerkiisa awoodda badan ee Jang Song-sik, kaas oo lagu eedeeyay khiyaano qaran, musuqmaasuq iyo dambiyo kale. Professor Jang Moon-jin oo ka tirsan jaamacadda daraasaadka Kuuriyada Waqooyi ee magaalada Seoul ayaa sheegay in taliyaha cusub ee ciidamada Ri Myong-soo uu ka mid yahay saddexda mas'uul ee ugu dhow Kim Jong-un, isla markaana lagu yaqaano aqoon qoto dheer oo uu leeyahay tiknoolajiyadda gantaalada. Kuuriyada Waqooyi ayaa bishii hore ay samaysay tijaabadii afraad ee hubka nukliyeerka ah, halka bishan ay hawada u dirtay gantaal ridadiisu ay dheer tahay. Labadaas talaabo waxay dhaleen cambaareen iyo carro xooggan oo uga timid beesha caalamka. Hagaag, haddii aan halkaas ugu gudubno qodobkaas, aan u imaano weeraro isdhaafsi ah oo u dhexeeya Mareykanka iyo Iiraan oo wiiqay xabad joojinta, iyada oo ilo reer Iiraan ah ay sheegayaan in wadahadalladu sii xoogaysanayaan. Mareykanka iyo Iiraan ayaa mar kale isweydaarsaday weeraro dhinaca cirka ah, halka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku hanjabay duqeymo kale oo dheeraad ah haddii Tehran aysan si degdeg ah u aqbalin heshiis nabadeed. Si kastaba ha ahaatee, markii ilo reer Iiraan ayaa sheegay in wadaxaajoodiyada ku saabsan heshiis hordhaca ay si weyn u dardargaleen. 3 ilo oo Iiraaniyan ah iyo mas'uul reer Yurub ah ayaa sheegay in Mareykanka iyo Iiraan ay hadda isdhaafsanayaan fariimo ku saabsan faahfaahinta qorshaha heshiis kadib markii ay gaareen is-afgarad siyaasadeed. Hase yeeshee, arrimo muhiim ah ayaa weli u baahan in si qoto dheer loogu wada hadlo, gaar ahaan habka lagu sii deynayo balaayiin dollar oo hanti Iiraaniyan ah oo muddo dheer ku xayirneed bangiyada dibadda. Dagaalkan marka dhinaca militariga laga eego, meel uu ku dhammaanayo ma leh. Mareykanku kuma guuleysanin himilooyinkiisa uu ku lahaa
weerarka Iiraan. Dhinaca wadaxaajoodiyaduna horumar ayaa laga sameeyay, ayuu yiri mid ka mid ah ilaha reer Iiraan. Trump ayaa marar badan sheegay in heshiis la gaari doono dhowaan, balse mas'uuliyiinta Mareykanka ayaa si degdeg ah uga hadleen halka ay marayaan wadahadallada dadban ee labada dhinac. Dagaalkan ayaa sababay dhimashada kumanaan qof, kuwaas oo intooda badan ku nool Iiraan iyo Lubnaan. Waxaa kale sare u qaaday qiimaha shidaalka dunida tan iyo markii Mareykanka Israa'iil 28 Febraayo ay bilaabeen duqeymo culus oo ka dhana Iiraan. Xiisaddu markuu waxay si gaar ah u sii korortay toddobaadkan, inkastoo horaantii Abriil la gaaray xabad joojin jilicsan. Weerarada isdhaafsiga ah ayaa sii xoogaystay kadib markii Isniinta la soo riday diyaaradda nooca Apache oo Mareykanku leeyahay, taas oo ku dhoweyd marin-biyoodka Hormuz. Ciidamada Mareykanka ayaa sheegay in weeraradooda ugu dambeeyay lagu bartilmaamsaday xarumo kormeer ciidan, nidaamyada isgaarsiinta, goobaha difaaca cirka ee Iiraan. Mareykanku wuxuu sheegay in weeraradaasi ay jawaab u hayeen waxa uu ku tilmaamay gardarro joogto aan sabab lahayn oo ay Iiraan waday. Trump ayaa fiidnimadii Arbacada u sheegay wariyaha Fox News Trey Yingst in duqeymaha Mareykanku ay dhowaan joogsan doonaan, balse ay dib u bilaaban doonaan duqeymaha xooggan haddii hoggaanka Iiraan aysan isla markiiba saxiixin heshiis ay la galaan Washington. Hadalladaas ayaa markii hore sare u qaaday qiimaha shidaalka, balse markii dambe qiimuhu dib ayuu hoos ugu dhacay kadib markii ganacsatadu ay qiimeeyeen saameynta dhabta ah ee dagaalku ku yeeshay sahayda shidaalka. Taliska dhexe ciidamada Mareykanka CENTCOM ayaa shaaciyay in weeraradu ay dhammaadeen qiyaastii 4 saacadood kadib markii ay bilowdeen wax yar kadib saqdii dhexe ee magaalada Tehran. Iiraan oo weeraro jawaab ah qaaday. Ciidanka ilaalada kacaanka Islaamiga Iiraan IRGC ayaa sheegay in weeraro jawaab ay ku qaadan 18 bartilmaameed oo Mareykanku leeyahay. Goobaha la beegsaday waxaa ka mid ahaa saldhigyo ciidan oo ku yaala Kuwait, saldhigyo ku yaala Bahrain, xarunta ciidamada badda ee Mareykanka ee 5th Fleet ee Bahrain. Kadib Iiraan waxay sheegtay in habeenkii labaad oo xiriir ay weerartay saldhigga Al Arzaq ee dalka Urdun iyadoo ay ku riday 12 gantaal oo plastic oo lala beegsaday ciidamada Mareykanka. Wasaaradda arrimaha gudaha ee Bahrain ayaa sheegtay in gabar 11 sano jir ah ay dhaawacyo fudud ka soo gaareen, guryo badan ay waxyeeloobeen kadib markii burbur ka soo dhacay diyaarad drone ah oo Iiraan la soo riday. Kuwait ayaa iyaduna sheegtay in muddo gaaban hawada ka xirtay duulimaadyada sababo la xiriira weerarka Iiraan. Waayahay, haddii aad halkan nala soo gaartay, waan kaaga mahadcelinaynaa la socoshada iyo daawashada muuqaalkeena. Fadlan like noo saar, aragtidaada qaybta hoose ee faallooyinka noogu reeb. Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay.